السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا بركيسنا وكسو دوادا موقال كان قيب كميدا ريوينكا أما عالم كالرياضة أيانا كسو قادم دونا دي إلهي وقلاده بإذن الله. ريوينكان أنا هلك كان كفصيري دونو وحالغا يابا دادك قاركود إنay حساسيات قونية كقادر أما كأركان لكن إلهي سبحانه وتعالى سغايري نفي قرن ميسو goortay geeriyoonayso iyo meesha ay ku geeriyoonayso iyo siday haddana u geeriyoonayso wax walba ilaahay agtiisa ajal bay ka leeyihiin balse sababaha kala duwanaan kara iyadoo ilaahay agtiisa shay walba uu ajal ka leeyahay ayuu Allah wuxuu ku leeyahay taxaddar waxa kala jira wax la yiraahdo cabsi iyo taxaddar shayga inaad ka cabsatid oo iskii ku soo gaari karo mar walbana wax sharaysatid waa wax sharciga uu reebay laakiin inaad taxadartid oo fiidhoon tahay digtoon tahay waa wax sharcigu ku amray labadaas ay dadku isku khaldaan marka isku khaldeenna khalad ayaa u soo baxay natiijadu khalad bay noqonaysaa si kastoo noqoto muuqaalkan ku soo dhawaada nagu qaata siday doontaba ha noqotee waa riyooyin qofka hadduu arko ka turjumaya in ay ajashiisa dhamaatay yani geeri bay ka turjumaya asaga xataa uma ahan laga yaabo qof yaqaan laga yaabo qof qaraabadiisa adigu waa riyo ajal ka turjumaysan ee dhamaatay dhimasho noocyada dabcan markaynu joogno halka kan waa badbaada channel macluumaadka furan ayaynu ku soo gudbinaa tijaabo cilmi aqoon diin wada waxa aan dhaxalnay waxaan baranay wixii aan markaas soo ogaanay maqaalada qaar waxa laga yaabaa macluumaadka aan kula wadaagayno in bisha dhexdeeda aan ogaanay 10 bari usbuuca dhexdiisa aan ogaanay kuna kalsoonanay kadibna in soo hordhignay baa macquul ah marka riyooyinka waa mar ku soo qaadnaa qaybo wayna ku jiraan muuqaalo kala duwan oo riyooyinka noocyo kala duwan ku soo qaadanay laakiin waxa jirta caalamkaas iyo caalam kale oo la nooca oo ruuxiya in aynu u samaynay channel gooniya ma sha Allah haddaad marka jeceshahay fasirka riyooyinka iyo howlaha inaad wax ka ogaatid ruuxda iyo asraarteeda kala duwan inaad fahamtid xanuunada ruuxiga sida lagu cilaajiyo calaamadahooda kala duwan rabtid inaad ogaatid oo aad ka mid tahay gruubyada ama dadka xiisanaya arrimahaas waxaad booqan kartaa subscribe aad dhihi kartaa gambaleelka aad dhakab koofiyada u xiraysaa si mar walba wax cusub ku soo gaaraan channelka aan arinta ugu talagalnayba oo ah CF bulsho adigu ku sugaya macluumaadkaas ayaan ugu tagaysaa biidnillah aynu u soo noqono marka mowduuceena biidnillah riyooyinka kan haddaad aragtid u diyaar garow geeri qof walba waa laga rabaa inuu diyaar garow nabiga asagaba nala heba akthiru hadhihi milladat waxa badisan macaanka midka gooya يعني geerida de waaba iimaanaysaaba ilaa waa waxaan ilaahay kula kulmayno oo qofka haduusan geeriyoon ilaahay lama kulmayo la kulanka ilaahay iyo gaaritaanka rabbi iyo galitaanka janno biidnillah darisin aan rasuulka ilaahay jannada kula noqono meesha u marayno waa geeri qofkan soo marin halka ma tago marka geeridu wax mushkilada ma lahan waan dhimanaya waa la isguursanaya alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan nolosha sidaas walaalaya kriyada koowaad waxa weeye aan rabo inaan soo qaato biidnillah wuxuu arkay qofkii ku riyooday asagoo madaxa ciid iskaga shubaya ciid calaamad waxay u tahay oo aragteen in yani la dhinto qofkii meedka la aaso walidaalka nabiga wasallallahu alayhi salatu wasalaam ibn aadanka calooshiisa ma buuxiso illa ciid afka loogu guro mooyaan يعني إن نهاية أهلك مريسو وأشوف أفحر مثال حديث كدري مثال أسوق عيد ما راح أسكت شو يوقفك كريود قريب كترجم مثال أما أسوق الله قشوا بيو قريب كترجم مثال كاسوا قضب كحجة وحوية نقف كريود إيش يصير الله فتشنيو إيش يصير أمان الله فتشنيو فتشل ولا قسينيو أيضنا قريب أيه كترجم مثال وحكلو كم ده riyooyinka soo qaadanayna muuqaalka kan inuu qofku riyoodo ilig ka dhacaya ama laga siibayo laga fujinayo gows laga bixinayo ama ilig laga fujinayo wixii la midka hadduu ku riyoodo waxay tilmaamaysaa qof kamida qoyskiisa waliba kuwa ugu dhow
أتجي وكدينا والروحة هاي خاتمة ونكسر عن نسي أهل كيسة قرابة ديسة قف كم يدولي بكو وجدو أسعني أي كتر تميسة سداس المفسرين تلمامين يعني واحد علامة تلمامي سواء قام كإلهي وجوني يعني علم الريوين كتلمامي يوه لأن ريوين كله فسره علوم تكملته إلهي نبي يوسف بسي والنبي محمد بسي وصالحين تسي ودتك علم جي أقونتي إن درجات كلا يوسي سبحانه وتعالى صادرت بوجاد كو عصر كان قري يكو حلقي تابعين لا دحلي أفكار هذا السيدة عالم كل أوريجري ابن سيرين وفسر ريوين عن كواها نابلس وكله تفاسيرته ريوين كتب ليه آخرين كرتا وأرك كرتا وحبدنا كبوح حتى قرآن كتفسير كذا بمعنى ريوين سورة ده كرتون لغو ريو دمان فاتحة لقى بلا إلى الناس سورة الناس هذا كو أركيسة ابن سيرين هذا حتى فينيس ما شاء الله مركو أرنيس كعادية نبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيي روحان إسأركي كأنما ضيق صوم تقننها لأن يسوى تقناه تماها مركي شرطة ويقعد دهان سير الضيق وقرني يعني مركي واللبك الدقاق الدورة حاجة كده يعني الضيق أسوقه يقوشينيه أو يمدمديه لا أفدر بليه كد أيام كل يوضي وما أنا أركون بيقول لي إلا أجلس يده سود واتمويا أوفرس ساس رسولك عليه الصلاة والسلام لقولي رياضة كلا حكته وحوية إنه قفك كل رياضة سورة والضحى والليل إذا سجى وودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سورة والضحى قيمة خبطا af Soomaaliga marka loo yimaado suuradaha Allahu Akbar loo yaqaan suurada ugu dambaysa hoos marka laga yimaado kor marka laga yimaado suurada ugu horeysa waa 20 suuradood ay wadduha hadduu qofku arko iyadoo wajigiisa lagu qorayo suuratu wadduha wajigiisa ama dhabankiisa geeri bay ka turjumaysaa taas waxa soo raaca inuu qofku ku riyoodo gurigii saqafkiisii halkan kore waxaan kore guriga haya roobka iyo cadceedda iyo waxa ka celinaya oo dumo la fujistay ayaa ku riyood ama guriga tiirarkii hayay shubkii hayay ayaa soo dumay oo ku riyoodo qofkii taa waxay ka turjumaysaa labadiisa waalid haday nool yihiin mid kamid ah tagaya hooyo ama aabo sida tafsiirka riyooyinka ku timid waxa kale oo riyada soo raacayso oo ku xigtaa inuu qofku ku riyoodo suuratul faatiha akhrinteeda maxaa ku riyoonaya qof xanuunsan gaar ahaan iyadoo lagu akhriyo qofka xanuunsan baa tagayo oo ajashiisa soo dhawaatay macnaha suuratul faatiha oo hurdada lagu riyoodo mawdkii iyo ajashii dhamaatay ka turjumaysa gaar ahaan qofka hadduu yahay qof xanuunsan riyada kale xigta waxa weeye qofku waxa ku riyoodo cuntadii loo soo dhigay asagoo dhamaystay nag uu ka dhigay xabad uu ka tagay taa waxay ka dhigan tahay sida mufassiriintu sheegayaan ajashiisii intuu rasaaqad ku lahaa bay ka turjumaysaa inay soo dhamaatay taana waxay tilmaameen waa aqlabka marmar bay nooc kale noqotaa laakiin aqlabka sida badani waxay noqotaa hadduu qofku ku riyoodo cunto la siiyo cunto saxan weyn sabmiyo tagay wax kale cunto weyn la soo hordhigay marka cuntadaas ayuu cunaya nag buu ka dhigay saxanka dhaman carabka ku dhaqaya waa leefaya haday saa tilmaanta aqlabka waa maxay waa ajashii soo dhamaatay waxa ugu dambeeyo riyada ku soo gabagabeynayna waxa weeye riyada lagu riyado suuratu an-nasr idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سورة داير سورة النصر مدني سورة دا سو أخرنا يقفك كل رياضي waxay tilmaamaan mufassiriintu inay ajasho dhamaatay ka turjumayso laana bay dhaheen waa koow waa suuradii ugu dambeysay quraanka soo degtay dhamaad bay tilmaamaysaa marka ajal dhamaad oo halkaas yaani kala xiriirta waa marka labaad waxay ka waramaysaa ajal dhamaatay iyo geeri soo socoto nabi maxamed baa loogu sheegay calaamadaha haduu arko in is ururiyo marka halkaasna way ka xiriiriyeen inahaas way inaha aynu muuqaalka kan ku soo qaadanay وانا رجينيا إني ذا عجبية إن شاء الله هناك إلو بين تاغيرات إيران موجسان ربيتان كربتان إن مركا قاركوت ريوين عجائبة
inaynu halka kusoo bandhigno, laakiin sida rasmiga waa CF Bulsho ayaynu ballanteena ahaanaysaa biidni ilaahay. halkaan macluumaadka furan meelna gaar uma ahan, ayaanoo badbaada channel kusoo gudbinaa. rabbiga yahayna badbaadiye. horay u socda, ilaahay baanu weydiisanaynaa khaatumo wanaagsan iyo camal suuban, iyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala gafkeena iyo geerideenna uusan kulmin. ilaahay haydan barakeeyo. jazaakum allahu khayra.